إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن إن شاء الله بالله رسالة معتقد كقصة بسنة وهذا الأصول الثلاثة رسالة الله مقعبة وإلى هاي مقعة الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة usuusha saddexda iyo halaathatu usuul labadaas magacaba kitaabka durarka ah juskiisa koowaad 127 al-usuul athalaatha sheekha oo Sheekh Maxamed Cabdiwahaab iskale inuu ku magacaabay saasa ku sugan al-usuul athalaatha sidaas oo kale isla durarka ad-durar saniya في الأجوبة النجدية جزء كوباد أسنا 117 ثلاثة أصول أكو تالا ثلاثة أصول marka labada magacba inay u sugan yihiin oo labadaba waxa weeye sheekhu ku dhawaaqay ayay tusaydaa oo marka wax farqiyo aysan u dhaxayn mutunta iyo shuruuxdoodana sidaas ku kala taalo qaarna al-usul ath-thalatha ayaa ku taala sida xaashiyada oo waxa weeyaan uu iska leeyahay Cabdiraxmaan ibn Xamed al-Najdi al-Hanbali wadadka xaashiyada saaray kan sharaxa uu Maxamed Saalix Uthaymin saarayna thalathat usul ku qoran marka labada magacba inay leedahay risaaladu taas ayaa meesha ka muuqata taas magacadan uga gudubno sheekha iskale risaaladan yarta ee faa'iidada badan وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد النجدي التميمي وحود الشيء هجرية مركيهات كن بقل طبعا إيشان هنا كود الشيء مقالة عيينة أيو كود الشيء قوري علمي إيا الدين إيا شرفه كود الشيء أبهيس وحوها عالم وين awowgii Sulaymaanna caalimkii Najdi ayuu waqtigiisa ahaa 10 sano intuusan gaarin ayuu Sheekh Maxamed Quraanka xifdiyay fiqiga ayuu aad u darseeyay ilaa uu ka gaaray meel weyn abis aad u la yaabi jiray wiilkaas xifdiga ilaahay uu galiyay wuxuuna aad u daalaca jiray kutubta tafaasiirta iyo ahadiista juhdigiisa iyo dalac cilmigii ayuu habeen iyo maalin sii waday wuxuu aad u xifdi jiray mutunta cilmiga ee faniyalka kala duwan ee kuma kaaftoomi jirin in xooganta loo laqbeeyo uu laqbadaas ku kaaftoomo mutunta waa xifdi jiro korku ka xifdi jiray alfaada iyo macnahaba rixlooyin cilmiya ayuu sameeyay wuxuu u rartay Najdi jihooyinkeeda kala duwan Makka al-Mukarrama u rartay culimadii joogtay ayuu ku dul aqriyay Madiinu haddana u soo rartay culimadii joogtay ayuu ku dul aqriyay waxaana kamid ah culimadiisa waaweyn aabiis ka gadaal al-Allaama al-Sheekh Abdullah ibn Ibrahim ash-Shammari sidoo kale wiilkiisii waxa weyn Abdullah ibn Ibrahim wiilkiisii al-Fardi ash-Shahir ee ku canbaxay Ibrahim ash-Shammari wiilkaas laftirkiisana waxa weeyaan asnaa uu ku dul akhriyay kutuba war wiilka alifay weeyaan sheekhi alifay weeyaan al-Adb al-Faa'id oo sharh alifiyat al-Fara'id sidaas oo kale waxay bareen laba wiilkaas yaabiis oo laba sheekha markii uu duruus iyo kutub ku dul akhriyay ka gadaal المحدث الشهير محمد حياتي سندي وحو كدل أخريي علم الحديث كأمهات ستها أيون جازء السيي الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحا إلهي ويبي فهم لياب بضان وآد حال دير إيا الذكاء وحو آد الدائم المطالعة شدا إيا بحثك إيا إنو كتب ألفه ونو يستاغي مركي ضمبه inuu aad ula dagaalamo shirkiyaadkii iyo munkaraadkii la soo dirisiiyay oo uu waxa weeyaan ahlulbidici iyo dadkii xumaanta ku barbaaray uu waxa weeyaan arrintaas kala dagaalamo oo uu diinkii iyo tawxiidkii tajdiidiyo waxaad ogsoontihiin nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa oo ka sugan xadiiska Abu Hurayra inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam
in allaha yabcathu lihadihi اlummati calaa ra'si kuli 100 sana man yujadidu lahaa diinaha. allah subxaana wa tacaala raxmadiisa iyo fadligiisa ixsaankiisa ummadan u sameeyey waxaa ka mid ah inuu ummadan usoo saaro 100 sanoo kasta waxa weeyaan mid u cusboonaysiiya diinteeda. xadiiskaas xadiis saxiixa ahlucilmiguna saxiixiyeen silsilatu xadiisi saxiixa 599 uu ku yaalaa. marka tajdiidkaasna macnaheeda waxa weeye waa tacbiirka bacd ulculamaa ay ka cabiraan atasfiya watarbiya oo macnaheedu uu yahay diinkii nabiga loo soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam, diinkaas waxyaalaha aan ka mid ahayn oo dadku ay ku soo dareen in laga saafigareeyo oo waxa weeyaan la kala sooco wixii gadaal laga soo dirisiiyey iyo diintii nabigu la yimi sala allahu calayh wasalam. tajdiidku waa noocaas, wax lagu dari maa, wax laga jari maa, mid cusub lasoo waxyoomaa, ee diintii nabiga lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam waxyaalaha dadku ku soo dareen ee aan ka mid ahayn in laga sooco, axaadiista mawduucaadka ee la dejiyey laga sooco, tafsiiraadka iyo taxriifka iyo ta'wiilaadka aan waafaqsanayn oon sawaabka waafaqsanayn laga sooco, oo diinkii nabi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam oon barax lahayn ummadda loo caddeeyo. marka taasu waa shaqada koobaad. shaqada labaadna waa in dadkii lagu tarbiyeeyo diinka saafiga ah. marka atasfiya watarbiyana saasay bacdu culamaa saas waa kuwa ka cabira. marka tajdiidkuna waa sidaas waxa weeyaan. marka culimmada in badan oo ahlucilmiga kamida ka dambeeyey way ku tilmaameen inuu mujadid diinta ka mid ahaa. mujadidiintana sida xaafid ibnu xajar ba fatxulbaariga iyo ku yidhaahdo iyo culamo kaleba oy caddeeyaan waxaa dhacda xataa hal qarni in dhowr mujadidiinta ka mid a ilaahay isla keeno, ilaa khayraadka loo baahan yahay iyo dhinacyaalka kala duwan ee inxiraafku ka dhacay ee ummadda in laga toosiyaa loo baahan yahay ayaa fara badan. marka a'imadaas ilaahay diinta ku nooleeyey ayuu ka mid ahaa. ilaahay wuxuu ugu gargaaray waxa weeyaan nimankii madaxda ahaa ee reer aala sacuud, maxamed ibnu sacuud iyo awlaadiisii iyo kuwaasaa ilaahay ugu gargaaray oo garab istaagay oo u nusreeyey diinkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam siday u fahmeen saxaabadii iyo a'imadii salafu saalix ee uu ka mid ahaa abu xaniifa, imaamu maalik, imaamu shaafici, axmed bin xambal, imaamu lbukhaari, muslim iyo keyrkood ee aan la tiri karin aada u faraha badan. a'imadaas sidii ay u fahmeen waxa weeyaan in ummadda loo celiyo oo loo laabto waxyaalaha gadaal laga keenayna laga joojiyo. kutubo badan ayuu alifay oo aada u nacfi badan oo risaaladan aan akrinaynaa ka mid tahay usuulu halaatha, kitaabu tawxiid uu ka mid yahay, kashfu shubahaat uu ka mid yahay, alkabaa'ir uu ka mid yahay, mukhtasaru linsaaf wa sharxu lkabiir uu ka mid yahay, mukhtasaru zaad ulmacaad uu ka mid yahay, mukhtasaru siira uu ka mid yahay, fataawo fara badan iyo rasaa'il ayuu leeyahay. waa la jamciyey oo magaca waxaa lagu jamciyey majmuucatu mu'alafaati imaam maxamed ibn cabdilwahaab. waxa weeyaan taxta ishraafi jaamicati imaam maxamed ibn sacuud ayaa lagu jamciyey. wuxuu dhintay sheikha raximahullah 1206 markay hijriyadu aheyd ayuu dhintay. ilaahay weyna ha u naxariiso subxaanahu wa tacaala, raxma waasica annagana nagu anfaco cilmiga iyo nuurka uu ka tegey. sheikha maadaama shaqada uu istaagay ay tahay wadiifadii nabiyaalka, acdaa aad u daran ayuu yeeshay, acdaa aad u badan ayuu yeeshay. acdaadaas waxyaalahay kula dagaalamayeen way kala dunaan. culamadu waxay yidhahdaan marka lasoo koobo ilaa 3 la dhihi karaa. qaar ka mid ah waxay ahaayeen dad looga been sheegay sheekh oo waxa weeyaan aan xaqiiqadiisa dul istaagin, oo markaas hadal beena oo looga sheegay sida in la yidhaha nabinimu sheegtay, madhab cusub ayuu waxa weyan ummadda ugu yeerayaa, khilaafadii islaamiga ahayd ayuu duminayaa. waxa weyan dad looga been sheegoon xaqiiqadiisa dul istaagin qaybu dhinkaasi ahaayeen oo culummo iyo caamaba markaas la dagaalamay iyagoon xaqiiqada waxba ka ogeyn. qolada labaadna waxay ahaayeen waa qolol aqraad siyaasiya leh oo cadowgii caalamul islaam inuu gumaysto doonayey ee caalam islaam baabi'inayey, dicaayaad ay fadiyeen ayay ahayd. maadaama qofka dariiqii nebi maxamed soo noolaynaya sala allahu calayh wasalam ay gaaladu u og yihiin inuu yahay cadowgada xaqiiqadaha rasmiga ah. taasuna qeyb weyn ay ka qaadatay dicaayadda oo mustashriqiintii iyo kufaartii waxa weeyaan kaleba si weyn ay arrintaas uga qayb qaateen. qeybta saddexaad oo aada ula dagaalanta waxay ahayd dadkii ku barbaaray khuraafaadka iyo inxiraafka diiniga ah ee caqadiga ah iyo shirkiyaadka
oo waxaas ay ayagu arkeen ay ku barbaareen diinka saxdaa moodayey oo waxa weeyaan diinkii saxda ahaa ee uu ugu yeerayey u fahmay inuu qalad ugu yeerayo ee ayagoo difaacaya khuraafadoodii si aada u adag ula dagaalamay. marka culimo badan ayaana kutuba ka alifeen arrimahaas oo dhan looga jawaabayo oo lagu caddaynayo iftiraa'aad wixii ah, wixii acdaada ay waxa weeyaan sameeyeen oo been abuur ah, iyo wixii xaq ah oo lagu sheegayo laakiin xaq ah oo waxa weeyaan xaqnimadoodu ay ka qarsoontay dadka gabalna ayagoo ogo aqraad leh ay waxa weeyaan diidanaayeen. kutuba aad u badan ayaa laga alifay, waxaana kamid a kutubaha naafica ee shubahaadkaas shiiqa lagu soo arooriyey looga jawaabay. qaar badan oo isagu ka jawaabana way jiraan, kashfu shubahaadkuna waa ka mid. waxa weeyaan qaar badan oo kaleetana waxa weyan ardadiisii ama se caruurtiisii a'imo badan oo kamid ah iyo keyrkoodba ayaa ka jawaabay. waxaana kamid a siyaanat linsaan can waswasati shaykh daxlaani, kitaab aad u mufiid ah oo shubahaad aad u badan oo daxlaani uu arooriyey ka jawaabay. waxaa kamid a dacaawa almunaawi'iin aad runtii juhdi badan ugu bixiyey oo sheekh mucaasir uu iska leeyahay. waxaa kamid a juhuud culamaa alxanafiya, waxa weeyaan shamsudiin alafqaan, kitaabka 3 mujalaho aad u faa'iidada badan iyo keyrkoodba oon lasoo tiri karin culummaduna shubahaadka ayay ku kashfiyeen. intaas ka gadaal matniga ayaan laqbaynaynaa insha allahu. bismi illaahi araxmaani araxiim. shiiqa wuxuu ku bilowday matnigiisa bismi illaah, ilaahay magaciisa ayaan ku alifayaa kitaabka. allaha arraxmaani naxariista ballaaran naxariista, allaha arraxiimi naxariista gaarka ah waxa weeyaan naxariista. marka shiiku wuxuu ku bilowday kitaabkiisa basmalada kuma bilaaban xamdalo iyo aayaad, sidaasuna waa sida sunnada waafaqsan, qur-aanka kariimkaana waafaqsan. marka ku dayasho uu kitaabka ilaahay ku dayanayo ayuu ugu bilowday. kitaabka ilaahay bismi illaahi raxmaan raxiim ku bilowda min laga bilaabo suuratu lfaatixa ilaa suuratu nnaas, marka laga soo reebo suuratu tawba. marka ku dayasho uu kitaabkaas ilaahay ku dayanayo ayuu bismi illaahi raxmaani raxiim ugu bilowday. wakadalika ta'siyan binabiyi sala allahu caleyh wasalam, ku dayasho uu nabiga ku dayanaa sala allahu caleyh wasalam. nabiga rasaa'ilka uu dirayo wuxuu ku bilaaban jiray bismi illahi raxmaan raxiim. waxaana mithaal ahaan iyo tusaale ugu filan xadiiska bukhaari iyo muslim risaaladii uu hiraqle u diray bismi illahi raxmaan raxiim ku bilowday nabiga sala allahu caleyh wasalam. kadalika tii sulxulxudaybiya markii la qoraayey cali bn abi daalib uu qoraayey bismi illahi raxmaan raxiim qorwi waaba qorayba, kadib waa kuwii kufaartu ka doodeen bisin maaha inta kasoo hartay oo ah arraxmaan iyo arraxiim waa kuwii ka doodeen. marka rasaa'ilka nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku bilaaban jiray bismi illaahi raxmaan raxiim. qur-aankuna wuxuu ku bilowdaa bismi illahi raxmaan raxiim. waxaa soo haray khudabka hadalka, markuu hadlaya nabiga sala allahu caleyh wasalam xamdalu ku bilaaban jiray. sidaas xamdalu ku bilaaban jiray xadiiskii jaabir ayaa kutusaya ee saxiix muslimka. nabiga sala allahu caleyh wasalam ina alxamda lilah ayuu ku bilaaban jiray xamdigaas iyo aayaadka qur-aanka ayuu ku bilaaban jiray. taas marka waxay kutusaydaa sida bacdu ahlicilmiba baraarujiyeen, waxa weeyaan ta'liifka sida sunnada waafaqsan waa in bismi illaahi lagu bilowdo, sida qur-aankuba ku bilowdo, sida nabigu rasaa'ilka ku bilaabi jiray sala allahu caleyh wasalam. waxa weeyaan in lagu bilowdo khudabka ama hadalka ama in lagu bilowdo xamdalada iyo aayadaha qur-aan, sidaasaa sunnada waafaqsan oo sariix ku ah. sidaas weeye. marka bisinka ayuu ku bilowday. bismi illaah, ilaahay magaciisa ayaan ku bilaaban. allah waa calamun calaa daat illah, ilaahay daatadiisa calam u sugnaaday weeye. waana haddana aclaamta waxaa lagu yaqaanaa badanaaba inaan macno aysan lahayn oo ay lafdi mujaradahu daata tusata, laakiin taas way ka duwan tahay asmaada allah subxaanahu wa tacaala. makhluuqa asmaadiisa aclaamta ah macno ma tusto marka laga reebo qiyaamaha magacyaalkiisa iyo nabiga sala allahu alay slam magacyaalkiisa. marka labadaasoo makhluuqa ka mid ah magacyaalkooda aclaamtahu macnay leeyi oo 4 shay waxaa jirta aclaamtooda asmaadooda aclaamta ayna aclaamna tahay awsaafna tahay. allah magacyadiisa, qur-aanka magacyadiisa, nabiga sala allahu calayhi wasalam magacyadiisa
iyo qiyaamaha magacyadoodu waana aclaam waana awsaaf waa aclaam oo daataday tusayaanay calam u yihiin nabiga maxamed sala allahu calay wasalam ayaa magacyadiisa ka mid ah waxa weeyaan waa calam mar dhinac laga fiiriyo oo daatada nabiga loo baxshay sala allahu calay wasalam waana wasfiyo waa mid in badan la mahdiyo waa wasfi oo macno tusa qiyaamaha waa sidaas oo kaleeto yowmulxashri asmaadeedu waa badanta yowmulxashri haddii la yidhaha waa magac calam ah oo qiyaamu iska leeyahay wa maca daalika macnu wataho waa maalinta dadka lasoo kulminaayo macnahaas waa wata allah subxaanahu wa tacaala asmaadiisu waa aclaam biictibaari dalaalatiha cala addaat wa awsaafun biictibaari dalaalatiha cala almacaani allah marka asmaadiisa waa aclaam oo marka waxa weya allah la yidhaha waa calam macnana waa tusaaho waa mushtaq oo waxa weeyaan allah mushtaqun min ilaah a laga keenay min alilaah ilaah ah hamsadii la xadfay labadii laama laisku idqaamay allah oo waxa weye min aliha cubida waa la caabud halkaasay ka timi aliha cubida waa la caabud fa huwa ilaahun ay macbuudun waa ficaal oo bimacnaa mafcuul ah sida kitaab mid la qoray bimacnaa maktuub ku la qoray soo maaha libaas bimacnaa malbuus mid la xirto soo maaha ilaah bimacnaa macbuud mid la caabudo marka macnuu leeyahy marka qur-aanka haddii la ihahdo qur'aan alqur'aan waa calam oo qur-aankaanu tusaa waana wasfi oo macnuu leeyaho wuxuu tusaa bimacnaa maqru waa shay la akriyo qur-aanku waa shay la akriyo oo macnahaasu tusaa marka afartiiba waa miithaalinay oo aan nidhi aclaamna waa yihiin awsaafna waa yihiin magacyadooda oo allah iyo qur-aanka iyo makhluuq laba ka mida oo ah nabigeenna sala allahu calayh wasalam iyo qiyaamaha afartaas way ka duwayen inta kaleeto oo aclaamtoodu macno ma tusto waxaa dhacda dadka ilaahay kan ugu faasiqsan in lagu magacaabo cabdullah alaleeyahy cabdullaahi marka laleeyahay waa un magac mujarad ee addoon allah caabudo loolama jeedo fiiri mid aan weligiis shar mahana wax kayra lagu aragaa maxamed lagu magacaaba maxamed markaas laleeyahay loolama jeedo waa mid la mahdiyey waa magac mujarada haddii magaalo magac loo baxsho maalan magaala waxa laleeyahay muqdisho wax macnaa oo laga fahmaayo laleeyahay ma lafdigan macnihiis muxuu yahay ma jirto kaliya un daatadaama tusa makhluuqaadka kaleeto aclaamtoodu macno ma tusaan laakiin nabiga sala allahu alay wasalam iyo qiyaamaha aclaamtoodu waa awsaaf allah iyo qur-aanka alle makhluuq ma aha qur-aankuna makhluuq ma aha labadaasna asmaadoodu waana aclaam waana awsaaf marka allah waa magacaas calamkana ah waxa weeye mushtaqana ah oo macnaha tusaya waana sidaas cabdullahi ibni cabaas hadalkiisa waa laga fahmin oo uu yidhi dhul uluhiyati walcubudiya sida ibnu jariir dabari uu sheegay waxa weeyaan dhul uluhiya duuda waxaa loo isticmaalaa isimka mushtaqnimada lagu cadayna waa midka ilaahnimada u saaxiibka wey iyo cubudiyada in la caabudo ayuu u saaxiibi calaa khalqihi ajmaciina wey marka bismi illaah allah magaciisa ayaan ku alifaa kitaabka ayuu yidhi sheikhu allah magaciisa ayaan ku alifaa kitaabka allaha arraxmaani naxariista guud naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista arraxmaan arraxiim laba macnay ahlucilmigu ay sheegaan ibnu jariir dabari wuu sheegay markuu fasiraayey arraxmaan arraxiim macnahaas labadaas macno mid kamida oo ah raxmaan in loola jeedo waxa weeyaan arraxmaan bijamiici alkhalqi makhluuq oo dhan allah u naxariista oo naxariis ballaaran naxariista naxariis caam ah ee aan mu'miniinta ku gooni ahayn ee makhluuq oo dhan u naxariista oo wuxuu yidhi arraxmaan bijamiici alkhalqi waraxiimna macna naxariis khaasa oo ah waraxiim bilmu'miniin allah mu'miniinta u naxariista qur-aankana macnahaas waa laga fahmaa sida alla yidhi subxaanah wa kaana bilmu'miniina raxiima ilaahay mu'miniinta waa mid u naxariista mu'miniinta u naxariista alle marka taas waa macno oo in la yidhaha arraxmaan allaha naxariista caamkaa naxariista ilaa gaalku naxariis alle wuu haystaa waa la abuuray waa la risaaqaa waa cunaa waa cabaa nabadgelyada caafimaadka neecawda lama soo koobi karo in tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha mu'miniintuna taas way la haystaan caamka mid gaarana way haystaan oo aliimaan ah walislaam taasoo nicmatulkubraa ah iyo haddii la dhinto jannada iyo raalli ahaanshaha
nicmadaas gaarka ah mu'miniintana alla naxariiso taas waa macno marka sidaas la yiraahdo arraxmaan arraxiim labadaba waxaan ka dhignay sifa ficliya labaduba waa laba sifo oo ficil ah oo ilaahay sameeyay macno labaad ayaa jira ibn الqayim fawaa'idku ayuu ku sheegaa macnahaas waxa weeyaan hal cilmi badanna way sheegaan raxmaan waa sifatu dhaat in la yiraahdo oo la yiraahdo allahaasoo arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan waa sifatu dhaat maaha sifatu ficli markaas waa sifo uu iska leeyahay raxmad ballaaran inuu ku sifaysan yahay dhuraxmati lwaasica taas waa raxiimna laga dhiga sifatu lficli allahaasoo arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono makhluuqiisa ka mid a marka tan hore waa sifatu lficil oo alle asagaa ku sifaysan naxariis ballaaran wey midda dambaydana waa sifatu waxa midda hore waa sifatu dhaat aan rabaa waa sifatu dhaat asagaa alla ku sifaysan naxariis ballaaran wey tan damboo raxiimana waa sifatu lficliyo raxmaddii uu ku sifaysnaayo alla gaarsiiyaa ciduu doono yucadibu man yashaa wayarxamu man yashaa wa ilayhi tuqlabuun marka arraxmaan arraxiimna intaas ayaan uga gaabsaynaa kadib shiiqa kitaabka magaca uu u baxsho ah al-usuul athalaatha muqadimaad saddex oo ka hormariyey saddex muqadimo ayuu ka hormariyey saddexdaas muqadimo kadib uu toos inta u galo ayuu sharxi doonaa saddex muqadimo ayuu ka hormariyey oo mid waxa weeyaan saddexdii usuul ba ay soo dhex gelayso midda koobaad wuxuu ka cabiri doonaa waxa weeyaan 4 mas'alo oo waajib ah uu dhihi doonaa muqadimada labaadna wuxuu dhihi doonaa 3 mas'alo oo iyaguna waajib ah ila masaa'ilka diinku waa badan yihiin midda saddexaadna wuxuu dhihi doonaa bayaanu millati ibraahim uga hadli doonaa nabi ibraahim diintiisa inuu caddeeyo saddexdaas muqadimo ka hormarin marka kadib ayuu saddexdii asal gelaya saddexdii asal markaas kadib uu gelaya markuu saddexdaas muqadimo u sameeyo midda koobaad uu uga hadli doono wujuubu 4 masaa'il 4 mas'alo inay waajib tahay iyo midda labaad uga hadli doono wujuubu 3 masaa'il 3 mas'alo oo kale oo iyaguna waajiba iyo muqadimada saddexaad oo uga hadli doono bayaanu millati ibraahim nabi ibraahim diintiisa inuu caddeeyo markuu intaas caddeeyo kadib ayuu gelayaa marka oo usuushii toos u gelayaa markaas usuushii uu toos u gelayaa iclam ogow raximaka allaha kuu naxariistee annahu shaniye yajibu calaynaa korkeenna inay ku waajibaydo tacalumu 4 masaa'ila masalooyin 4 barashadooda alulaa mas'alada ugu horeyda alcilmu cilmi weeye wa huwa cilmiguna macrifatullaahi waa ilaahay garashadiisa wa macrifatu nabiyihi waa nabigiisa garashadiisa sala allahu calayh wasalam wa macrifatu diini lislaami waa diinta islaamka garashadeeda biladillati daliilyaalka lagu garto iclam ogow oo cilmi yeelo cilmiga waxaa la yidhaahdaa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima sida waxa weeyaan shaarixa maxamed bin salix uthaymiinba uu waxa weeyaan uu caddeeyey oo ahlucilmiguna dee waa masala usuuliye ay usuulka in badan ku caddeeyaan tacriifaad badanaa lagu tacrifiya lakin kaasaa ka mid a waxaa la yidhahdaa cilmi waxa weeyaan shayga inaad u garato sida uu yahay weliba garashadaasuna ay go-antoon shaki kaaga jiro saasaa la yidhahdaa cilmi marka idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima shaygu siduu yahay inaad u garato garasho go-an oo aan shaki kaaga jirin iyo taradud maxaa ka soo horjeeda marka la yidhi idraaku shay shayga garashadiisa waxaa ka soo horjeeda cadam idraak inaadan shaygii garaynba oo qofaa la weydiin waxaa laleeyahay war miyaad taqaanaa waxa weeyaan arkaanulislaam markaasuu leeyahy ma garanayo jahli basiidaha la yidhahdaa kaas waa cadam idraak garasho la-aan maba garanayaba marka waa iska fudud oo kaasoo kale waxbaa la baraa waa musiibo garasho la-aan laakiin waxbaa la bari karaa waxaa kaloo ka soo horjeeda marka la yidhaha shaygu sida uu yaho xaqiiqadiisu tahay in loo garto inuu qofka shayga u fahmo siduu ahaa si aan ahayn oo iskuna haysto inuu garanayo shayga
ya sidii uu ahaa si aan ahayn u haystaa haddana wuxuu isku haystaa inuu garanayo waa maalan qof waxa leeyahay war arkaanu islaam ma taqaanaa markaasuu leeyahay nacam waan aqaanaa markaasuu sheeg markaasuu leeyahay waa udxiyada iyo mawliidka iyo ciidda waxbuu tirin mid kaliyuuna ka mid maaha waa ka daran kii hore jahli murakaba wey shaygiina ma yaqaan naftiisuna inaysan oqoon ma oga ee inuu yaqaano isku haysta waa jahli murakab waa midda ugu daran jahilta wamaa calimta biannaka laa tadri waman lii bian tadriya biannaka laa tadri shaacirku siduu yidhi jaahil baad noqotay garanan maysid inaad jaahil tahay allah yaa ii kaa garansiiya inaad is ogaato kaliya inaadan wax ogeyn kadib waxa lagu baree waa midka ugu daran marka la yidhaha shayga waa in la garto siduu yahayna loo garto kuwaasa kasoo horjeeda idraag jaazim ha la rabaa marka garasho go-an maxaa kasoo horjeeda garasho go-an waa un iska xoogaa tawahum saas inay tahay waa dhici karta wax weyn kama hayo wahmiyaa la yihahda ama saasna waa dhici karta saasna waa dhici karta uma go-na shakiyaa la yidhaahda ama dhinacay ula badan tahay malaa la yidhaahda waxaasoo dhan ina dhanna laa yuqni min alxaqi shay-a muctaqadka iyo caqiidada qofka muslimka ah waxaas waxba kama taraan waxaa la rabaa inuu xaqa u garto sida uu yahay idraag jaazima khaasatan masaa'ilka qadciyaadka ah ee go-an ee waxa weeyaan usuusha islaamka ah waa inuu saas u gartaa qofka marka iclam cilmi yeelo horta garo waxaad ogaataa raximaka allah ilaahay ha kuu naxariisto allah ha kuu naxariisto oo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala raxmad aad ku hesho waxa aad doonaydo oo wax alla waxaad jeceshahay kuugu soo xasilaan allaha ku siiyo ood uga badbaado wax alla waxa aad ka cabsaydo ilaahay weynaa ha ku siiya raxma aad ku gaarto wax alla waxaad doonaydo fi dunya waalaakhira aadna uga badbaado wax alla waxa aad ka cabsaydo fi dunya waalaakhira lafdigaa nuucaasa oo iclam waxaa loo adeegsadaa masaa'ilka muhiimka marka la rabo in la sheego iclam oo la rabo qofku inta ku tanabaho baraarugo inuu diyaargaroobo oo isagoo qaafilaysan masalada ku dhicin raximaka allaahuna waxay tusaydaa waxa weeyaan saniicaas waxay tusaysaa cinaayada iyo shafaqada sida uu ugu dadaalayo dadka ummadda inuu wax fahamsiiyo oo uu waxa weeyaan tacliimta islaamka gaarsiiyo iyo sida ugu naxaysan ugu dhimrinayo waana wadiifadii rususha waana dariiqadii culimmada rabbaaniyiinta qofka marka diinta aad u sheegaydo inaad si rifqi ah u adeegsato si rifqi ah inaad u adeegsato oo sida ugu turiinada badan ee aad isleedahay qofkaanu xaqa wuu ku qaadanayo inaad ugu sheegto waa dariiqadii nabiyaalka waxa weeyaan waana dariiqadii culimmada rabbaaniyiinta ah allahna subxaana wa tacala nabigiisu ku tilmaamay dadka inuu rafiiq u ahaa oo u dhimrinayey oo u naxariis badna ilahay wuu ku tilmaamay inuu nabiga sala allah alay dadkiisa u dhimrinayey wa kaana bilmu'miniina ra'uufan raxiima mid u turid badan u naxariis badan uu nabigu ahaa sala allahu caleyh wasalam ilaahay wuu ka anfiyey nabigiisa khildada qallafsanaanta iyo adadkaanta walow kunta fadan halida alqalbi lanfadu min xawlika haddaad ahaa lehda mid waxa weeyaan adag ee qalbi adag dadku way kaa kala tegi lahayen adoo rasuulka allah oo xaq sheegaya marka xaqii laftirkiisa ayaa waxaa la rabaa inaad u sheegto dariiq sawaab ah ilaahayna wuu jecel yahay rifqiga iyo turiinada inaad si dhimrin ah qofka xaqa ugu sheegto allah jecel xadiiskii bukhari muslim ku tuse in allaha yuxibu rifqa fi lamri kulli ilaahay weynaa turiimada iyo turidda waa jecel yahay arrinkoo dhan fi lamri fiiri waa caam kullihina waa caam kale labaa la ysdaba dhig nabiga sala allahu alay slm xadis saxi muslim wuxuu leeyahay in allaha yuxibu rifqa wa yucdi birifqi calaa ma laa yucdiihi cala alcunfi ilaahay rifqigu jecel yahay wuxuuna qofka ku siiyaa waxuusan shidada iyo adayga ku siiya wamaa laa yucdii calaa maa siwaa ilaahay wuxuu ku bixiyaa rifqiga wax uusan ku bixin wax ka soo haray marka waa dariiq ilaahay jeceliya subxana wa tacala rifqiga waa jeceliya ma ahan inaad tirahdo ma calaya ila albalaaq aniga gaarsiin maan wax kale mal anigu waa u sheega dushiisan ku tuura wuxuu raba ha yeelo ma ahan nacam maa calayka ila albalaaq wa kayfa albalaaq waa runtaa oo inaad gaarsiido nabiyaalkaba intaasa waajib ku yahed adna intaa lagaa rabaahe laakiin balaaqa lagaa rabaa kayfiyadiisu waa keen ma cunfiya maaha cunfi balaaqa lagaa raba adiga wuxuu yahay usluubka ugu wanaagsan eed isleedahay qofkaanu xaqa wuu ku qaada inaad ugu sheegto laakiin haddaad usluubkii ka leexato ood balaaqii ilaahay ku amray ee rasuulku ku amray sala allahu calay wasalam aad ka leexato ee qaab waxa weeyaan cunfi iyo shiddo un ah
aad u adeegsato waxa weeyaan wixii ku saarnaa maadan gudan wixii ku saarnaa. marka waxa weeyaan aad usluub u fiican weeye. iclam ogow raximakallah, nabiyaalku maxay dhihi jireen tolkood? yaa qawmi quluu laa ilaha illa allah tuflixu, tolkaygiiyo saasay dhihi jireen. iclam ogow raximakallah, ilahay ha kuu naxariiste, annahu sha'niye yajibu calaynaa, korkeenna inuu ku waajibayo tacalumu 4 masaa'ila, masalooyin 4 barashadood inay korkayaga waajib ku tahay ogow. 4 mas'alo inaan barannaa inay korkeenna waajib ku tahay ogow, allaha ku ogeysiiye. masalo waa 4 masalo aad u muhiima, bal usuushi islaamka wuu jamcin. alulaa masalada ugu horeyda alcilmu, cilmi wey. masalada ugu horeyda ee waajibka ah ee qofka muslimkaa laga rabo waajibka ku ah waxa weeyaan alcilmu, cilmiya waajib ku ah. cilmi waajibu ku yahay. weliba cilmiga waxa weeyaan uu rabo inuu hadda sheego waa shay aad u muhiim ah oo waxa weeyaan wujuubkiis uu cayniya. sababtoo ah cilmiga markuu waajibo waa 2 wujuubkiisu: wujuub cayni ah oo qof kasta inuu barta ay waajib ku tahay, iyo wujuub kifaa'i. cilmiga waajibaya waa 2daas. cilmiga ku saabsan qofka diintiisu waxay ku sugnaa laheed, ay ku ansixi laheed, waa wujuub cayni ah, qof kastay waajib ku tahay. raggay waajib ku tahay, dumarkay waajib ku tahay, addoommaday waajib ku tahay, axraartay waajib ku tahay. waa wujuub cayniya kaas. imaam axmed markii la weydiiyey noocaas ku jawaabay wujuubka cayniga cilmiga ah waxa weeyaan maa laa yaquumu diinu lmar'i ila bih, waa waxaan qofka diintiisii toosnaa karin ilaa in la helo maahan. sida waxa weeyaan allah garashadiisa, nabiga garashadiisa sala allahu alay slam. diin maxaa la idhaha? diin islaam garashadiisa, tawxiidka inuu fahmo qofka. sida dahaaradii ansixideed waxay ku ansaxayd, sida salaadiisi waxay ku ansaxayd, sida soomkiisi waxa uu ku ansaxayo. gabadhii muslimada xijaabka sharciga laga rabaa wuxuu yahay. wiilkii muslimka iyo gabadhi muslimiinta ahaa cawradooda dharkay ku asurayaan wax uu yahay. masaa'ilka noocaasa waa wujuub cayni ah, qof kasta inuu cilmi u leeyahay waajiba. qof uga wakiil noqon kara ma jiro. muxaramaadka inuu garto qofku oo waaweyn oo waxa weeyaan shirkiyaadkii xaaraamnimadooda waa inuu garto, iyo waxyaalahaas muxaramaadka ah oo mar kasta inuu iska ilaaliya la rabo. marka cilmi ayaa waajiba. dalabulcilmi fariida calaa kulli muslim, qof kasta oo muslima cilmiga inuu dalbaa waajibay ku tahay, kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam. qof kasta oo muslima waana cilmi cayniya. cilmiga ka soo haray waa cilmi fardulkifaa'i, waa waajib lakin waa kifaa'i, oo dadka kulli mid waajib uguma ahan, sunnay u tahay mid laakiin dad yaqaan in laga helo sida diintii nabiga dhammaanteed loo xifdiyo oon diintii qayb u lumin waa waajib cayniya. waa waajib oo kifaa'iyahan rabaa, waa waajib kifaa'iya. marka masalada ugu horeyda waa maxay oo waajibka nagu ah? alulaa masalada ugu horeyda alcilmu waa cilmi. cilmigii ku sheegin marka oo weliba caynigahayo qof walba waajib ku ahaa. wa huwa cilmiga waajibka ah macrifatullaahi, waa ilaahay garashadiisa. inaad ilaahay taqaan, ilaahay inaad ka taqaan qalbigaaga. ood waxa wey ilahay garashadiisa maxaa loola jeeda? garashadan waxaa loola jeeda wujuudkiisa, inuu alla jiro inaad ogaato. kalla alla inuu jiro cid aan ogeynoo makhluuq aho banu aadamka kamid maba jirtaba. akfaru nnaas, dadka kii ugu gaalnimo badnaa fircoon ah soo ma wuu ogaa allah inuu jiro. qur-aanka si sariixay ugu cadda oo ilahay uu ku caddeeyey. laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalardi. nabi muuse waa dhaar, wallaahi ilaahan ku dhaarana ee waad og tahay aayaadka iyo mucjizaadka aan wado inuusan soo dejin cid kale rabu samaawaat soo deji. sidoo kaleeto ilahay wuxuu yihi wajaxaduu bihaa wastayqanatha anfusuhum. fircoon iyo dadkii la socday way diideen aayaadkii nabi muuse, naftooduna waa yaqiinsatay, xataa shaki ugama jirin ilahay. marka waxa weya jiritaan alla kaliya maaha. 4 shay weeye masalada gadaalna noogu soo laabana. waxa lagaa rabaa waa allah inaad u garato wujuudkiisa, allah inaad u garato inuu yahay khaaliqa koonkan isagu abuurtay ee milkiye maamula. allah inaad u garato inuu yahay mustaxiqa mudan in la caabudo oo keligiis cibaadada xaqa u leh. allah inaad u garato asmaadiisa sifaadiisa. waa 4taas macno. 4ta macnona waa noo soo laabanaya marka uu masalada soo celiyo insha allah, iyo waxyaalaha lagu garanayo.
taas waa midda koowaad waa inaad allah garato garasho ay ka dhalato in waxa weeyaan aad keligiis caabudo keligiis sharcigiisa u hoggaansato keligiis xukunkiisa aad ka xugun dhigato taas waa inaad allah garato ko wa macrifatu nabiyihi nabigiisa waa inaad garato sala allahu alayh wasalam nabi maxamed waa inaad garato sala allahu alayh wasalam nabi maxamed sala allahu alayh wasalam inaad garato muxuu ahaa nabi maxamed muxuu ahaa nabi maxamed ibn cabdillah ibn cabdilmuطalib ibnu hashim ibn cabdimanaaf alqurashi waa inaad garato inuu yahay rasuulkii ilaahay usoo diray waxa weyan basharka jinniga iyo insiba ilahay usoo diray jinni iyo insiba ilahay usoo diray ee ilaahi weynaa la soo diray diinta uu raalliga ka yahay uu u doortay in asaga lagu caabudo oo diin laga dhigto waa inaad u garato inuu yahay waasidada u dhaxayda allah iyo makhluuqa laba waasidaa jirta waasido waa waasida mushrikiintu ay aaminsanaayeen allana diiday oo waa maxay cid alla ka sokayda in la caabudo si ay alla kuugu dhaweydo oo tirahdo alla nagu tawasuli adoo caabudayo cibaado u samaynayo waa mid ay mushrikiintu wayaxbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yadurhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah wax allah ka sokeeya caabudaya ee aan dhibna ka celi karin dheefna usoo jiidi karin markaasaa marka la yidhaha war waxaanu dhib ma keeni karaan dheefna ma keeni karaan dhibna ma celi karan maxaad u caabudaydaan waxay leeyiin wax kaloo caabudi mayna allay nooga ergeyna agtiisa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allah alla inay noo dhaweeyaan ka rabna marka waasidadaas waa xaaraam waa ti gaalada waasidada kalena waajibka ahuna waxay tahay rasuulka iyo rususha oo dhan waa waasida bayna alkhaaliq walmakhluuq oo rasuulku wuxuu waasida u yahay litabliiqi risaala inuu ummadan diinta soo gaarsiiyo maahan asaga in la caabudo lagu tawasulo oo cibaado ahaan loogu tawasulo isaga inta la caabudo la allu ii dhaweynaa taas waa tii gaalada ee waxay tahay diinka alla raalliga ka yahay ee ilaahay nagu adoonsaday in lagu sugnaado diintaas inuu na soo gaarsiiyo saasuu wasta u yihi waxa weeyaan culummaduna taasay ka dhexleen nabiyaalka oy wasta u yihiin inay dadka diinta soo gaarsiiyaan sidaas darteeda dariiq ilaahay raalli ahaanshadiisa lagu gaaraa ma jiro kulli inta albaabo kale waa xihan yihiin ilaa dariiqu nabigu soo gaarsiin maayo waa inaa saas u garato wax ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay lagu caabudo ma jirto ilaa diintii uu asaga usoo dhiibay oo asagoo jooga dhammaystirantay maahan waa inaa saas u fahamto diin ilaahay kii uu usoo dhiibay un kaliya marka waa wisdada ama waasidada u dhaxayda khalqiga iyo makhluuqa waxa weeyaan khaaliqa iyo makhluuqan ula jeedaa khaaliqa iyo makhluuqa waasidada u dhaxayda oo waasiteenimada macnaheeduna ay tahay litabliiq risaala risaaladan inuu soo gaarsiiyo oo dariiq kaloo ilaahay lagu caabudaa uusan jirin ilaa dariiqa uu nabigu la yimid maahane sala allahu alayh wasalam taas waa inaad u garato waa inaad u garato nabiga inuu abtiriskiisii wax ka fahanto oo nabiga uu yahay waa inaad wax ka fahanto dil wira nabigii ka waran oo tira nabiga anu waxaan u fahansanahay in nuur laga abuuray ma taqaanid nabigiiba haadba rumaynayba maba taqaanid nabigan aabba iyo hooyaa dhaleen fiiri aabba iyo hooye aabbuu leeyay waxa weyan hooyana waa leeyahy cabdullaahi yaa la yidhaha aabihiis aamina la yidhahdaa hooyadiis maxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdilmuطalib ibnu hashim ibnu cabdimanaaf weeye alqurashi kulli ilaa nebi aadan laga soo saas usoo tarankaasuu ku yimi ilaaha markaas isagoo basharka ka mid oo qof banu aadana ah alla doortay markaasuu wax alla wixii makhluuq ahaa ee basharhaayo dhulka ku sugnaayo ilahay ka fadil diin usoo waxyoodo usoo dhiibay oo uu yidhi dadka gaarsii wax uu alla jecel yahayna u sheeg wax uu alla neceb yahana uga dig marka waa inaad rasuulkii siduu yahay u fahamtaa taasuna waa masalada labaad masalada saddexaad waa macrifatu diin ilislaam diinta islaamka waa inaad garataa diinulislaam laba macnay leeda laba macno macno caam ah iyo macno khaas labadaas macnay leeda shaarixay maxamed ibn salih uthaymin labada macno wuu ku sheegi culimada ahlu cilmiga saasay u baraarujiyaan macrifatu diin ilislaam diin islaam macno caam ah leeda macnaha caamka waxa weeye alle in lagu caabudo wuxuu jideeyey laga soo bilaabo rususha markuu soo diray ilaa qiyaamuhu ay ka dhacdo mar kastuu rasuul soo diray diintu usoo dhibay diinulislaam ay ahayd diinulislaam ay ahayd nabiyullaahi ibraahim fiiri iyo nabiyullaahi ismaaciil oo ilaahay tuugaya rabbanaa wajcalnaa muslimayni ilaahow naga dhig laba muslim rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummata muslima ilaahow carruurtaydana ummad muslimada ka dhig
marka maantii nabi aadan la abuuray kadib rasuulku alla soo diro diintu usoo dhiiba diinu islaami ah ummadii diintaas raacdana markaas muslimada ah sidaas ah waxa weeyaan taasoo macnaha macnaha khaaska waxa weeye nabi maxamed markii la soo diray ka gadaal sallallahu alayhi wasallam islaam waxa la yiraahdaa diintii nabi maxamed la soo diray wax alla wixii diin ka horeeyayna allihii soo dejiyay yaa nasakhay oo ku nasakhay midda oo ugu tala galay middan in markaas kadib laga diin dhigto diidayna markaas kadib in laga diin dhigto diinihii hore wax alla waxay ku khilaafsan yihiin diinta wa in diinkan la raaco marka bacda bi'thati nabi maxamed marka la soo diray ka gadaal sallallahu alayhi wasallam diinul islaam waa diintii nabi maxamed la soo diray sallallahu alayhi wasallam nabi muuse markii la soo diray waqtigiisii dadkii raacay ee rumeeyay muslimiin ahaayeen laakiin nabigeena marka la soo diray dadkii nabi muuse raacsannahay lahaa ee nabi maxamed diido ku kufriyay waa gaalo ee diin ma haystaan saasana ilaahay quraanka ku sheegay tawraadna sidaa ku tiilay injiilna sidaa ku tiilay nabi ciise waqtigiisii dadkii raacay muslimiin ahayn waqtigaas nabi maxamed markii la soo diray ka gadaal waxa weyn kuwii diiday ee nabi maxamed rumeeyay diiday waa gaalo ee muslimiin ma ahan diin saxana ma haystaan ilaahay soo dejiyay ilaahayna wuxuu yiri inna diina inda allah islam diintaas marka aan ilaahay diin kale raalli ka ahayn ee ilaahay yiri waman yabtaqi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khasirin qofka dalba islaam kamidaan ahayn diin ka dalba oo diinan ka dhigaa yiraahdo ama yahuudiyada ahaato ama nasraaniyada diimaha samaawiga waxyaalaha kufriga ah ee waxa weeyaan dimuqraadiyadu ay wado ee gaalnimada bawaxa ah qofka muuminka waa inuu ogi waxa weeyaan diin samaawiya oo alla raali ka yahay dhulka yaala ma jiro illa diinka islaamka maahan markii nabiga la soo diray ka gadaal sallallahu alayhi wasallam marka diinta ilaah raaliga ka yahay waa midda islaamka waman yabtaqi ghayra al-islami diina qofka diinahan u dalba islaamka waxaan ahayn falan yuqbal minhu laga aqbali ma wa huwa fil aakhirati min al-khasirin diintaas marka nabiga loo soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam asagoo jooga la dhamaystiray waa inaad saas u ogtay si aad u garato ma huwa diin asagoo jooga la dhamaystiray oo ilaahay yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina waxa weyn maantaan inin kaamil yeelay diintiini nimcadiina korkiina ku dhamaystiray waxaana raali inin kaga ahay islaamnimada diin wax kale oo diin oo raali ka ahay ma jirto leeyahay Allah intaas markaad fahanto nabiga tii loo soo dhibay inay tahay diin asagoo joogana ay dhamaystirantay waxaad ku qancaydaa fama lam yakun yawma idin diinan fala yakunu yawma diinan maalinkii nabigu noolaa sallallahu alayhi wasallam saxaafadiisii joogeen waxaan diinahay diin ma gadaal diin kama noqon kara hal xaraf diinta gadaal loogama soo dari karo nabiga ka gadaal waxaan diinta kamid ahay saxaabadu misala kuma soo dari kuma dari kara aa'imadii ka dambeeyay kuma dari karaan waxay masaladaas ka daaweyn dalaal badan oo ummadu ku dhacday oo aayad quraan ama xadiis nabi masala ay cadayday inay ka hor keenan qowl oo yiraahdaan kan muusan diinahay qowl wadaad yiri taasay ka daweynayda marka diin garato wixii sababtoo diinku ma aan hebel ay yiri diinku waa kii nabi maxamed loo soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam marka masalada saddexaad waa macrifatu diin islaam saddexdaan asal marka saddexdaan asal oo ku yiri bil adillati waa inaad adilla ku garata ma ahan waxa weeyaan waa la yiri ha waa la dhahayay ma ahan bil adillati adilla waa inaad ku garata qofku hadduu tawxiidka ku dhawaaqo asagoo macnihiisa waxba ka garanayn islaamnimada ku soo gali ma gaalnimada uga soo bixi ma quraankana sariix sidaas ay ugu taala sida ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun ayadaas laba qowl ayay mufassiriintu kaliya ibn jarir at-tabari labada qowl waa sheegay waana kala rajix waxa weyn qowlka koobaad in la yiraahdo wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ma hananayaan kuwa mushrikiintu caabudaan mushrikiintu kuwa ay caabudaan oo yaa waaye wuxuu yiri Isa wa Uzair wal malaa'ika wa nabiyalki saalihiinta nabiyalki ka soo qaaday Isa saalihiintina Uzair iyo malaa'ikti saddexdaas oo mushrikiintu caabudaan ma hana karaan irgo oo ma shafeeci karaan waxay kaliya u shafeeci karaan illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun dadka tawxiidka xaq waa kalimatu ikhlaas dadka tawxiidka qiray ee ku dhawaaqay ee ogolaaday ee u gaansamay ayagoo aqoonta u leh fiiri ayagoo basiira iyo cilmi u leh ma ahan qof iskaga dhawaaqay oo wuxuu yahay aan garay
macnahaasuna weliba raja walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaaca ilaa man shahida bilxaq wahum yaclamuun kuwa ay caabudayaan mushrikiinta oo ah nabi ciise cusayr malaa'igta kuwaas la caabudaya waa wixii makhluuqa ilaahay abuuray ku ugu fadliga badnaa wey waa nabiyaalkii malaa'igtii saalixiintii uma ergey karaan cid aan tawxiidka qirin oo inta u shafeecaan naar kama soo saarayaan qof aan tawxiid la imaan inta loo shafaaco shafaaca naar uga soo bixi ma ee janno ku imaan ma hal waxay u shafeeci karaan oo kaliya bacda idni illaahi weeye iyaduna waa marka alla u idmeen waxay u shafeeci karaan ilaa man shahida bilxaq xaqa waa tawxiid qofka ikhlaaska kelimatu tawxiid qiray asagoo ka jahila miya maya wahum yaclamuun iyagoo weliba aqoon u leh wax ay qirayaan oo garanaya inay kelimatu tawxiid laba macno wadato diidid iyo sugid diidid waa maxe laa ilaaha wey wax macbuuda ee cibaadadiisu xaqtoo xaq lagu caabudaa ma jiro waa diidid ila allahuna waa sugid oo cibaadada allah in loo sugo saas isagoon qofku u garayn islaamka kusoo geli ma malaa'igtuna u shafeeci ma nabiyaalkuna u shafeeci ma maxaa yeele gaaladu ka mid yahay gaalan looma shafeeco macnaha labaadna waa isla macnahoo kaleeto ibnu kathiir uu caddeeyey oo waxa weeyaan walaa yamliku aladiina yadcuuna kuwa caabudaya min duunihi alla ka sokay kuwaasu ma hananayaanoo loo shafeeci maa wey walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi ashafaaca in loo ergeeyo ma helayaan oo loo ergey maa ilaa man shahida bilxaq wahum yaclamuun qof asagoo xaqii ku dhawaaqo ikhlaas oo kelimatu tawxiid ku dhawaaqay asagoo aqoon u leh maahane qof kale loo ergey maa marka labadii macnaan isku meelay ku imaanaya marka halkaas waxaad ka ogaatay waxa lagaa rabaa waxa weya diinkaaga inaad taqaanood fahmaydo waa khaasatan usuushi masaladaas waa masalo weyn waxaa halkaas marka ku jira masale aad u muhiima oo waa maxay dadka muslimiinta ah ee dadka caamada ah ee aan waxa weeyaan ayagu daliil garayn oo aan lafdiga laqbay karin laa ilaha illa allahu xataa ma qori karin hadii la yidhaha qor haddii la yidhaha soo laqbayna tarkiib carabiya ma tarjami karo isma saari karo dadkaasu hadday culummada weydiiyaan oo culummadu tawxiidka u sharaxdo oo macnihiisa ay fahmaan waxa uu diidaayo iyo waxa uu sugaayo oo ay sidaas u qiraano ugu hoggaansamaan ayagoon tarjami karin kelimadda waa ku dhawaaqayaan laakiin hikaad xataa ma yaqaanin sidaas muslimiin ma ku noqonaya mise kuma noqonaya waa masalo wax ma daliisho karaan istidlaal ma yaqaanin laakiin waa loo sharaxay waa fahmay tawxiid macnihiisa waxa la diidaayo waa fahmay waxa la sugaayana waa fahmay sidaasuna si jaazima asagoon shaki ku jirin u ogolaada mas'aladaas khilaafaa ku jira marka muslimiinta dhexdooda laga hadlaya khilaafaa ku jira lakin ahlu sunnuhu khilaaf ugama jiro inuu muslim yahay qofkaas waxaana isku khilaafa muctazilada iyo ashaaciradoo dhinaca iyo ahlu sunnaha ahlu sunnuhu waxay qabaan qofkaas waa muslim waa muumin saasay qabaan alimaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa muslimka uu ku sharxay baabka oo baabu su'aali can arkaani lislaam baabkaas waa juska koobaad safxada 171 dabcadu way kala duwan xadiidka anas ibn malik ee uu ku jiray imaatinkii uu imaanayay ninka la dhihi jiray dimaam ibn thaclaba xadiidkaas markuu sharxay wuxuu yidhi qaala shaykh abu camar ibnu salax asheekh abu camar ibnu salax wuxuu yidhi wa fiihi xadiidkanay ku sugan tahay dalaalatun wax tusaya lisixati maa dahaba ilayhi a'imatu lculamaa madhabkii ay ku tageen imaamyaalka culummada oo maxay tahay madhabki ay ku tageen min ana alcawaama almuqalidiina dadka caamada ah ee culummada iska raacay inta culummadu masaleed u caddayday ku raacay mu'minuuna inay mu'miniin yihiin xadiiskaanay ku jirtaa mu'miniin inay yihiin wa annahu yuktafaa minhum bimujaradi ictiqaadi alxaqi waxaana looga kaaftoomin oo kali ah caamadaas inay xaqa caqiideeyaan oo kaliya xaqi inay intaasaa ku filan oo looga kaaftoomi si intaasaa looga kaaf markaasuu yidhi jazman laakiin si go-an oon shaki lahayn inay u caqiideeyaan tan la fahamsiiyo shaki la-aan ay caqiideeyaan min ayri taradud min ayri shakin u yidhi min ayri taradud ma dhihin min ayri shakin uu yidhi shaki la-aan iyo tazalzul la-aan markaasuu yihi khilaafan liman ankara dalika min almuctazila waxaan sidaas ku khilaafaynaa
oo waxa weeyaan dadka diiday oo mu'tazilada ah halkaas marka waxaad ogaatay ahlu sunna inay qabaan caamada muqallidiinta hadii xaqa loo sharxo oo tawxiidka loo sharaxo oo ay fahmaan oo sidaas si shakil aana ugu qancaan u qaataan inay muslimiin oo ahlu sunna qabta mu'tazilana diidan sidaas oo kale waxa mas'alada aad u cadeeyay al-imam ibn al-hazmi al-zahiri kitaabkiisa al-fisal fi al-milal wal-ahwa wal-nihar dabcada badan uu leeyahay isagoo dabcada 5 mujallad way dabcadan uu aan ka akhriyo dabcada 5 mujallada ah mujalladka afraad waxa weeyaan 67 dabcada Beirut ee dhaadheer 5 mujallad dhaadheer warqad dheeraha wuxuu leeyahay hadal dheer cuwaan weyn u qabtay markuu cuwaankii u qabtay ka gadaal cuwaanka wuxuu ku bilaabayba ذهب محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشا السمانية محمد بن جرير وحو كتغوي إيو الشاعرة لما انتو هل وذات دي لغا صوريا وسمانية كل قد وحي كتغين أنه لا يكون مسلما إلا من استدل وإلا فليس بمسلم وإلا فليس مسلما مسلم ما أنقف كان واحد دليشن أدلكو قريب حق مسلم معها هذا الدير sidaas u waday markuu ashaaciradii marka iyo maxamed ibn jariir warkiisi cadeeyay oo wuxuu yiri waqala abu maxamed wa asag waqala sa'iru ahli al-islam muslimiinta intooda kale waxay yiraahdeen kullu man i'taqada bi qalbihi i'tiqadan la yashku fi qof kasta oo qalbigiisa ka aqiideeyo aqiido uusan ku shakisnayn وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عرب كان توحيدك كغدواقه وأن كل ما جاء به حق وحكستور نبي لي يمدو ديننا إنه حق هي قرة وبريئا من كل دين سوى دين محمد نبي محمد دين تيسي دين كستور كستور هرانا بريء كان نقضى فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك ومسلم مؤمن انت سبحانه دوشي سما halkaas maxaad ka ogaatay yaa mu'tazila dariiqeedii raacay al-ash'ira waxa weeyaan ayagu waxay leeyihiin qofku waa inuu daliishado saastaradeed awwal waajib ay ku khilaafsan ahlu sunnah waxa qaban awwal waajib waa kalimada tawxiid ayagana istidlaal waa inuu horta qofku wax daliishado ee qofan wax daliishado islaamka soo gali ma marka mas'aladaas waa mas'ala muhiim ah oo bil adillatu waa inuu ku gartaa sida ugu wanaagsan waa inuu qofku wax daliisho karo laakiin hadii loo sharaxo oo uu fahmo oo sidaas ku raaco culumadii inuu muslimnimadu u sugnaanayna mas'aladaas ahlu sunnah qaban taasna taasan uga gudbayna waxaan rabnaa wax yar markaas saddexdan asal waa saddexdaas asal oo kitaabka dhan u guntan yahay macrifatullah wa macrifatu nabiy sallallahu alayhi wasallam wa macrifatu diin islam saddexdan usul ko muhiimada goorida ay leeyihiin waxay tahay ko waa saddexda usul oo qofka lagu weydiiyo oo hadduu jawaabta helo uu jannada ilaahay helayo hadduu waayana uu naarta helayo masaladaas waa mas'ala qof walba inuu ku baraarugo rabo saddexdaas usul waa saddexda asal oo sheekhu kitaabka ku sharxi doono waana saddexda qofka lagu weydiiyo man rabbuka wama nabiyuka wama diinuka saddexdaas qofka qabriga lagu weydiiyaa hadduu jawaabo isla saacadaas qabrigana loo waasiyo jannadana daaq looga furo hadduu gafana ilaahay baan ka magan galaynaa inaan gafno ee waxa weeyaan saacadaas qabriga inta la isku ciriiriya feeru isdhaafan iqaabna markaas u bilowda waxa weeyaan waana midaas uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qowlka ilaahay macniisa yuthabbitu lahu alladheena aamanu bil qawli thabit waxa weeyaan dadka mu'miniinta ilaahay qowlka thabitka uu ku sugaya jawaabtan saddexda su'aashan saddexda jawaabtooda la waafajina way ilaahay hana waafajiyo isaga wada ko nabiga saddexdan asal waa ku celi jiray ayagoo saddexdaas isla xiriira ayuu sheegi jiray in iimaanka dhadhankiisa lagu gaaro saddexdood nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis sahih muslim waxa ka sugnaaday dhaaqa ta'ma al-iimaan iimaanka dhadhankiisa uu dhadhami macaankii iimaanku helay man radiya billahi rabban allah qofka rabbinima raali uga noqdo wa bil islam diinan islam kana diinahan raali uga noqdo dhaqan kale iyo diin kale aqbalay wa bi muhammadin rasuula sallallahu alayhi wasallam nabi muhammad rasuulnima raali uga noqdo xadiis sahih muslim ka marka la tajanna inay waajibto caday nabiga sallallahu alayhi wasallam
oo wuxuu yidhi man radiya billaahi rabban wa bimuxamedin rasuulan waxa weeyaan man radiya billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamedin rasuulan sala allahu alay wasalam wajabad lahu ljanna waa saxiix muslimka iyada janna u waajib marka qofka saddexdan usul siday yihiin u fahma siday yihiinna u raaca waxa weeyaan ilaahay wuxuu waafajinaya subxaana wa tacaala qabriga su-aashiisa jawaabteeda qofka saddexdan asal siday yihiin u fahma siday yihiin u raaca allah subxaana wa tacaala wuxuu dhadhansiinaya iimaanka macaankiisa qofka saddexdan asal siday yihiin u fahma ee sidaas u raaco ugu dhaqma janna u waajibtay marka muhiimadaas waa inaad ogaataa masaladii koowaad aan halkaas kaga gudub athaaniyatu mas'alada labaad ee waajibka ah alcamalu camal falid weeye bihi halkaa loo celin bilcilmi cilmiyaa soo sheegnaya aqrabu madkuur u celi damiirka meeshii lasoo sheegay tii ugu dhoweed athaaniyatu masalada labayda alcamalu camal falid weeye bihi bilcilmi cilmigii lagu camal falo lagu dhaqmo masalada labaadna waa midaas waxa weeyaan cilmigii aad baratay waxa weeyaan waa inaad ku dhaqantaa oo waxa weeyaan ilaahay rumaydaa oo rasuulkii rumaydaa oo diinkii rumaydaa oo awaamirtii allah iyo rasuul ka soo furtay sida ahaayeen u qaadataa oo wixii nawaahi ahaa ee ilaah iyo rasuul reebeen siday ahaayeen uga hartaa ee waxa weeyaan wax alla wix allah iyo rasuul sheegeen siday ahaayeen aad waxa weyn u rumaydaa sababtoo ah siday ahlucilmigu yidhaahdaan qofka hadduu cilmi yeesho oo uusan ku dhaqmin faqad shaabah alyahuud yahuudduu shabaha yahuud ayagoo cilmi lahay alla caasi jiray saas daraaddeeda salaad kasta ilahay wuxuu nagu addoonsaday ragcad kasta inaan ilahay ka magalno dariiqoodii hayri lmaqduubi calayh ilaahod kuwii loo carooday dariiqoodii dariiqan ahay nagu rid ee dariiqooda ha nagu ridi xadiis saxiixaana ku sugan almaqduubi calayhim waa alyahuud sababta carada alle ugu dhacdana ayagoo garanaya xaqii ayay ka leexdeen waa laruura waa daruura ee saas waaye asaga hawadiisa ayuu wax weeyaan ilaah ka dhigtay ya waa kow marka waa inaad garato wixii aad garato ku dhaqantaa haddii kaleeto xujay kugu noqonaya waalqur'aanu xujatun laka aw calayka haddaad qur-aankii sidaad u fahantay u raacdo xuju kuu noqon haddaad markaad fahanto waxa weeyaan ka leexatana xuju kugu noqon taasna waa mis marka waa inaad ku dhaqantaa qofka hadduu yidhi allaan caabudaan isagoon aqoon lahayna faqad shaabaha nasaara kirishtada yuu shabah kirishtaanki maxaa yeele kirishtaanku yacbuduuna allah bikayri cilm cilmi la-aan ay allah ku caabudi jireen taas daraaddeeda ilaahay ragcag kastoon salaada ku tukayno inaan ilahay dariiqooda ka mangalno ma amr ya waladaliin kuwa baadiyoobay dariiqooda dariiqan ahayn alla nagu rid ee dariiqooda ha nagu ridi daaliintana waa nasaaro oo jahli alle ku caabudayo marka athaaniyatu mas'alada labayda alcamalu ku dhaqmid weeyo ku camal falid bihi bilcilmi lagu camal falo athaalithatu mas'alada saddexayda ee qofka waajibka ku ah addacwatu yeeris weeye ilayhi halkee loo celin ma waxaa loo celin aqrab almadkuur camalkii mase waxaa loo celin cilmigii shuraaxda waa isku khilaafan qaar waxay celiyeen cilmigii oo waxay dhahdaan qofka daaciga wuxuu nashrina waa cilmi ee dadkan asagoo camalka ma gelaynsiin karo laakiin waxaa ka fiican sidaas in labadiiba loo celiyo ee saa loogu celin waaba damiir mufrade ilayhi bimacnaa madkuura loogu celin bimacnaa madkuura loogu celin addacwatu yeeris wey ilayhi ila lmadkuuri kii lasoo sheegay dadka loogu yeero waa inaad dadka ugu yeertaa waxa weeyaan alcilmu waalcamal ma ahan cilmi kaliya inaad ugu yeerto camal kaliyana maba ansaxayaba cilmi la-aan maba ansaxayo marka waa inaad ugu yeerto waa inaad ugu yeerto waa inaad ugu yeerto addacwatu yeeris weeye ilayhi ila lmadkuur cilmigii iyo camalkii waa inaad dadka ugu yeerta oo markaad fahanto diintii nabigu la yimid sala allahu alay slam naftaadana aad ku tadbiiqido waa inaad dadka ugu yeertaa waa inaad dadka ugu yeertaa taasna ilaahay weyna subxaana wa tacaala ayaan sidaasna amray oo qof kastoo muumino ma'muur sidaasu ku yahay sida ilaahay ba yidhi subxaana wa tacaala udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma ugu yeer dariiqa alle dadka xikmad ugu yeer waa alkitaabo sunna xikmad waalmawcidati alxasana waana wanaagsan ugu yeer oo waa maxay atargiib watarhiib waxa weeyaan mawcida inaad dadkii waanido qalbigooda jilcido wajaadilhum bilati hiya axsan mucaanidiintana xujaj ugu yeer marka waa sidaas wey ilaahay aayad kalena waa ku yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allah nabiga waxaa tiraa tan waa wadadaydii allaan dadka ugu yeeraa calaa basiiratin anoo cilmi iyo aqoon ku sugan maahan jahli inaan dadka ugu yeeray
ilaa qofka asagoon wax garayn hadduu yidhaha dadkiian diinta ugu yeedhin maa yufsiduhu akharu mima yuslixu intuu fasahaadinaya ka badan inta uu hagaajinayo marka waa in ugu yeeraa dadka marka nebi moxamed wuxuu yidhi ana waman itabacani yaa diinta dadka ugu yeeraya iyagoo oqoon leh aniga iyo intii raacdu yidhi nabiga sala allah alay aniga iyo intii raacday aniga iyo intii raacday aniga iyo intii raacday marka mas'alada saddexaadna waa midaas masalada saddexaadna waa mas'aladaas dacwadana oo qofku dadka ugu yeeraya waa ballaaranta waxaa soo gelaya khitaabka iyo muxaadaraadka oo dadka inta hor istaagto ama masjid ha joogeen ama meel kale ha joogeen meel ayagoo jooga inaad kelimaad aad ilaahay ugu dhawaanaydo oo diinka lagu caddaynaydo aad u sheegto waxaa soo gelaya waxa weeyaan inaad xalaqaad cilmiga inta u fariisato aad dadkii ku tacliimido ood ku tawjiihdo waxaa soo gelaya khusuusi si ah inaad qof hebel ama koox hebla si gooniya inta ugula qosado wax wanaaga oo waajib oy ka tageen aada ugu yeerto ama xumaan ay samaynayaan aad uga digto waxaa soo gelaya ta'liifka kutubta iyo rasaa'ilka inta la qoro ummadda la gaarsiinayo kulli waxaasoo dhan dacwadii ayay ka mid yihiin wayna ballaaranta waana dariiqadii rususha waa dariiqadii rususha marka halkaas ayaana ku joojinayna in sha allah wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed